kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hillaac qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre oo kulan la qaatay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Xasan Maxamed lafta gareen oo dhagax dhigay silig lagu wareejinayo garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen oo shaqada dib ugu celiyay laba wasiir oo shaqo joojin lagu sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaano hoostaga xuduudda ay wadaagaan Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay leeysiinta injineerada guryaha ka dhiso gobolka Banaadir qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hillaac madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya James Swan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo aqalka madaxtooyada ku qaabilay kusimaha cusub ee wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u soo magacaawday dalkeena Mudane James Swan kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta iskaashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay gaar ahaan dhinacyada bini'aadanimada nabadda iyo amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa danjira James Swan la wadaagay dadaalada dawladdu ay ku bixisay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta dalka isagoo u rajeeyay inuu si hufan u guto waajibaadkiisa cusub dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre oo dhankiisa kulan la qaatay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga ku meel gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqeynta hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha ayaa uga mahadceliyay qaramada midoobay taageeridda ay la garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo intaasi ku daray in diyaar ay u yihiin inay si dhow uga wada shaqeeyaan arrimaha bini'aadanimada horumarinta bulshada iyo xasilinta deegaanada laga saaray dagaalyahanada Al-Shabaab ergeyga ku meel gaarka James Swan ayaa dhankiisa kaga mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay isagoo sheegay in qaramada midoobay diyaar u tahay in dawladda Soomaaliya ay gacan ka siiso barnaamijyada hortabinta u leh qorshaha xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya iyo xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi gudoomiyaha golaha shacabka ayaa halkaasi uga qaybgali doono kulanka 17aad ee gudoomiyaasha baarlamaanada wadamada ku bahoobay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika oo maalinta birita si rasmi ah uga furmi doono magaalada Nairobi waxaana shirka looga hadli doonaa xalinta caqabadaha hortaagan horumarinta ajadayaasha ururka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maalmaha oo ku sugan yahay magaalada Nairobi wuxuu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta dalkaasi madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Xasan Maxamed lafta gareen oo dhagax dhigay
silig lagu wareejinayo garoonka diyaaradaha ee shaati gaduud ee magaalada Baydhabo. qodobkan waxaa soo koobaya wariyaheena Qadar Xuseen Axmed. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta waxa uu dhagax dhigaya mashruuca silig loogu wareejinayo garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo ee gobolkaasi Baaya si loo ilaaliyo badqabka diyaaradaha isticmaalo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. dhagax dhiga mashruuca horumarinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa madaxweynaha koonfur galbeed Cabdulcasiis Laftagareen maanta ku welinayay wasiiro xildhibaano taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka admiisa iyo marti sharaf kale oo maanta ka soo qayb galaya dhagax dhigaasi. mashruuca silig wareejinta garoonka diyaaradaha ee Dr. Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo waxaa maamulka koonfur galbeed ka caawinayso hay'adda UNSOS ee Soomaaliya. waa kan mas'uul ka mid ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo warbaahinta uga warbixiyay qaabka dhagax dhigaasi ay iskaga kaashadeen maamulka koonfur galbeed iyo waliba hay'adda UNSOS. gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobe. gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulla ayaa Muqdisho kula kulmay wafdi oo horkacaya agaasimaha guud ee xafiiska midowga Yurub u qaabilsan isku dubaridka howlaha bini'aadanimada iyo ilaalinta shacabka. labada dhinac ayaa ka wada hadlay in si wada jir ah wax looga qabto saameynta ka dhalan karto isbeddelka cimilada, abaaraha iyo fatahaadaha. sidoo kale hay'adda Sodma ayaa kulanka ku soo bandhigtay gurmadkii iyo gargaarkii ay gaarsiisay deegaanadii ee waxyeelada ka soo gaartay isbeddelka cimilada, waxyaabaha kaga aadan ka hortagga leexsashada gargaarka iyo horumarkii laga sameeyay arrintaasi iyo tallaabooyinkii la qaaday. sidoo kale waxyaabihii kulanka looga hadlay waxaa ka mid ahaa xoojinta iyo kor u qaadista awoodda hay'adaha ka soo kabashada aafooyinka iyo dejinta qorshaha ka hortagga iyo maareynta musiibooyinka iyo sidii adeegyada aasaasiga loo gaarsiin lahaa dadka iyo deegaanada ee waxyeeladu saameeyay. waxaana kulanka qayb ka ah hay'adaha taageero hay'adda Sodma. maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay leysinsiinta injineerada guryaha ka dhiso gobolka Banaadir. maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar oo bilaabay leysinsiinta injineerada iyo farsamayaqaanada ka shaqeeyo dhismaha guryaha. qoraal ka soo baxay xafiiska maamulka gobolka Banaadir ayaa saxaafadda waxa uu aqriyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Carab. soona baxay 12 bishii labaad ee 1980 markuu arkay xeerka 49 bis ee soo baxay 27 bishii koowaad 1980 markuu arkay sharciga number 10 soona baxay 17 bishii 12aad 1980 markuu arkay kobaca ay sameynayso magaalada Muqdisho markuu arkay baahida loo qabo in la nidaamiyo howlaha dhismo ee gobolka Banaadir markuu arkay korarka dhismooyinka soo duma ee geesta khasaare naf iyo maal intaba markuu dhageystay cabashooyinka ka imaanaya bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ee guryaha ku dulduma tayo xumo darteeda markuu garwaaqsaday mas'uuliyadda ka saaran nidaaminta howlaha dhismo ee gudaha gobolka Banaadir si loo yareeyo loona xakameeyo khasaaraha bulshada gobolka Banaadir markuu la tashaday khubarada qorsheynta magaalooyinka ee gudaha iyo kuwa dibadda wuxuu u xil saaray guddi ka soo warbixiya nidaaminta howlaha dhismo ee gobolka Banaadir kuwaasi oo soo saaray warbixin hordhac ah kuna saabsan shilalka soo noqnoqday iyo sidii loo nidaamin lahaa howlaha dhismo ee gobolka Banaadir. markuu taxgeliyay soo jeedinta gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir wuxuu soo saaray awaamiirtan. qodobka koobaad gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu go'aamiyay in si rasmi ah loo diiwaan geliyo dhammaan injineerada, xirfadlayaasha, farsamayaqaanada iyo shaqaalaha ka howlgala gudaha gobolka Banaadir si loo hubiyo tayada iyo xirfadda injineerada isla markaana sare loogu qaado isla xisaabtanka iyo xakameynta shilalka soo noqnoqday. qodobka labaad dhaqangelinta xeer dhismo ee uu yeesho gobolka Banaadir kaas oo la jaan qaadayo heerarka dhismo ee dunida si loo nidaamiyo isbarbaryaaca ka jira howlaha dhismo ee gudaha gobolka Banaadir isla markaana sare u qaadid lagu sameeyo
qorsheynta magaalada iyo tayada dhismooyinka laga hirgelinayo gudaha gobolka Banaadir. qodobka saddexaad in loo guuro nidaamka digitalka ee hubinta iyo ansixinta naqshada iyo qaabka dhismeedka dhismooyinka laga hirgelinayo gobolka Banaadir. qodobka afraad laga bilaabo 1 bisha June duqa magaalada Muqdisho wuxuu amray in la bilaabo diiwaangelinta iyo bixinta laysanka injineerada xirfadlayaasha farsamayaqaanada ku hoolan howlaha dhismo diiwaangelinta oo soconaysa muddo ku eg 60 maalmood. qodobka shanaad diiwaangelinta kadib waxaa naqshad ku soo gudbinaya madasha digitalka ah si loo hubiyo naqshadaha iyo qaab dhismeedka dhismayaasha la siinayo fasaxa dhismo in ay buuxiyaan habraacyada dhismo iyo u hoggaansamida xeerka dhismaha gobolka iyo heerarka badqabka kaliya injineerada iyo xirfadlayaasha laysanka injineernimo haysta. qodobka lixaad diiwaangelinta iyo bixinta laysanka kadib waxaa fasax u haysta inay dhismo ka howlgeli karaan gudaha gobolka Banaadir kaliya injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada la diiwaangeliyay loona ogolaaday laysanka dhismo ee gobolka Banaadir. dhammaan shirkadaha ku hoolan dhismaha waxaa si adag loo farayaa in aysan ka howlgeli karin cid aanan haysanin laysanka injineernimo iyo xirfadnimo ee gobolka Banaadir. qodobka toddobaad xarumaha diiwaangelinta laga bilaabo 1 bisha June injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada waxay iska soo diiwaangelin doonaan xarumaha loo asteeyay ee hoos ku xusan. 1 xarunta degmada Wadajir, 2 xarunta degmada Waaberi, 3 xarunta daddegista ee sugun daliido ee degmada Shangaani. fulin wacan guud ahaan warkii telefishinka Hillaac waa naga inta